السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ميل والبو aad joogtaan baa walaashiin umuna iyo mar kale اللهم صل على محمد walaalayaal caawa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raacay noqdo waxaan wadaagaynaa sagaalka qodob ee lagu garan karo in ay qofka sokortiisu ay tahay high ama ay qofka sokortiisa jirkiisa ay ku badan tahay uusan walibana gaarin marxaladda loo yaqaan sokorowga in uusan wali cudur ahaan diabetes uusan u helin marka wuxuu ku garan karaa sagaalkan qodob soo socota hadii aad isku aragto please dhiigaaga iska soo fiiri inaad sokor aad leedahay ama in ay mataqaana sokorta ay kugu badan tahay ka bacdina waxa bedelaysaa lifestyle kaaga waa ina mataqaana lifestyle kaaga bedeshaa qaabka u nooshahay marka hore waxaan inoo hormarinayaa sagaalka qodob اللهم صل على محمد qodobka koowaad waxa weeyaan kaadidaada oo badata qodobka labaad oon badan sababta oo ah marka ay qofka kaadidiisa badato ee jirkiisii wuxuu dareemayaa dehydration ayuu dareemayaa oo jirkii wuxuu dareemayaa qaleyl badan taasaana keenaysa oonka badan qodobka saddexaad qofka wuxuu dareemayaa gaajo badan oo gaajadaas xaqiiqdii ma aha gaajo qofku uusan wax cunin laakiin jirkii ayaa u sheegaya in uu qofku gaajaysan yahay oo si khalad u shaqeynaya qodobka afaraad daal badan waxyaabaha lagu garto sokorta ayaa waxay kamid tahay qofka marka uu jirkiisa ay sokor badan ku jirto sokortiina uu burburin la yahay in uu dareemo daal aad iyo aad u badan oo waliba daalkaas hadii uu caawa dhan hurday subaxii marka uu soo kaco isagoo daalan ayuu soo kacayaa laakiin hadaba qodobadan xanuuno kale oo keeni karana way jiraan اللهم صل على محمد qodobka shanaad kabuubyo gacmaha ama lugaha oo kabuubiyooda qodobka lixaad cuncun yaryar in uu mataqaana qofka meelaha qaarkood ay cuncunaan without no reason qodobka cuncunka iyo kabuubyada labadana waxa keenaya waxay tahay qofka jirkiisa ayaa xusan sameynaynin inflammation ku filan in uu qofka dhiigiisi iyo mataqaana xubnihii oo dhan dhiigiisidii loogu talagalay ay u wada gaaraan ayuusan ruuxu heli karin marka labadan qodobba dhinacaas ay ka imanayaan qodobka toddobaad hadii ay wax saraan ama haday wax jaraan qofkii oo aan dhaqso bogsanaynin oo meeshii kadka uu ku dhacay ama meeshii jarmatay ama sarmatay oo aan dhaqso bogsanaynin qodobka sideedaad muddo bil ah gudaheeda ayaa waxa laga yaabaa in uu qofkaasi aad ugu caatoobo ama uu dhumiyo miisaan badan qodobka sagaalaad indhaha oo madoobaada wax yar indhaha oo madoobaada qofka sagaalkaas qodob ayaa waxa ku garan kartaa jirkaaga in ay sokortu ku badan tahay ama jirkaaga in uu soo hayo sokorow hadaba hadii aad sagaalkaas qodob isku aragto waa in aad la xiriirtaa dhakhtarkaaga in aad la xiriirtaa si aad u hubsato in mataqaana sokortaada ay hay tahay oo sokorowga uu soo hayo iyo in kale labada type ama labada qaybood ee diabetiga 1 iyo 2 ba labadoodaba mataqaana astaamahan way wadaagaan oo labadoodaba waa isku arki kartaa astaamahan inkastoo oo mataqaana midda number 2 ga ah laga yaabo hal mar inay astaamaha si xoog badan ay u soo tuurato oo la soo baxdo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ooga baryaynaa inta mataqaana sokorta macaanka leh in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka caafiyo oo uu u yasiro ayaan ilaahay aan ka baryaynaa hadaba qofka waxyaabaha uu ooga badbaadi karo ayaa waxa kamid tahay qofka in uu bedelo qaabka iyo cuntada uu cunayo waa inaa heshaa cunto isu dheelitiran kelmadaas cunto isu dheelitiran fahankeeda ma sha Allah tabarakallah ayaa wuxuu yahay cuntada qaybaha ay leedahay oo ah protein fiber iyo healthy fat saddexdaas qayboodba in uu qofka uu wax ka haysto
بروتين مركان لأنها وإنا وحير أو chicken أما وحير أو fish أما وحيابها source أو بروتين كوحيابها لجهلا أيها متقنا إنها وحكا كعنته dhinaca kale waa inaa mataqaanaa heshaa aad cuntaa waxyaabaha sida broccoli-da oo kaleeto fiber kale oo qudaarta cagaarka ah oo mataqaanaa maasha Allah tabaaraka Allah vitaminskaaga iyo noloshaada kalena kor u qaadaya waa inaa cuntaa xagga fruitiska waxa kala tashanaysaa dhakhtarkaaga ayaa kala tashanaysaa sababta oo ah dadka qaarkood oo diabetes leh waxa laga yaabaa in uu dhakhtarka u ogolaado dadka qaarkoodna uu diido marka halkaas waxa wanaagsan in aad dhakhtarkaaga tooska kuugu xiran aad jawaabtaas ka qaado shakhsi baa shakhsi ay dadku kala duwan yihiin xaqiiqdii mana aha sokorowga ama diabetes-ga inuu dadku isku wada mid ay u yihiin ma aha qof walba meel u taagan tahay laakiin calaamadahan waa dadka high risk u ah oo aan wali exactly aan mataqaanaa aan qabin laakiin ku dhow inay mataqaanaa sokortii ay ku dhacdo اللهم صل على محمد dhinaca fruitska iyo dhinaca fruitska maadaama fruitska laftirkooda waxa ku jirto sokor Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray ayaa ku jirta marka xadiga uu qofka uu ka qaadanayo waa in uu dhakhtarkiisa uu kala socdaa sagaalkaas qodob kaliya ma aha in ay diabetes-ga oo kaliya ay ku kooban tahay ma aha waxa laga yaabaa xanuuno kaleeto in ay qodobadan qaarkood ay la wadaagi karaan biidnillaahi baari laakiin mar walba qofka waa inuu dhakhtarkiisa la socdaa ask your doctor mar walba inaad dhakhtarkaaga weydiisataa dhakhtarkaaga la socotaa caafimaadkaagana la socotaa walaalo badan codsi ay soo codsadeen aawadood iyo mataqaanaa xiiseynayeen maxaan ku garan karnaa inay jirkayga ay sokorta ay ku badan tahay ayaa mataqaanaa sagaalkan qodob oo astaamaha kamid ah jirka in ay sokorta ay ku badan tahay aan idin la soo wadaagay walaalo kale oo waxyaabo badan oo kale soo codsaday ayaa jira idin ma hilmaamin aniga idinkaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama lagu jiro 10kii dambe ee Ramadaanka Ilaahay waxa noo weydiinayaa dambi dhaaf iyo caafimaad ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo weydiinayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waqtiga noo barakeeyo ayaa Ilaahay noo weydiinayaa biidnillaahi baari codsiyadiina oo dhan haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waan fulin doonaa inta aan awoodo biidnillaahi baari dhamaantiin waxaan idin leeyahay wadac yaa Ramadaan ramadaankiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga iyo idinkaba Ilaahay hanagu wada gaarsiiyo caafimaad iyo naxariista Rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu wada gaarsiiyo waa walaashiin umumuna oo idin leh meel walba oo aad joogtaanba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh